على والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سودا وذا قيارتا شرف تراي ولكن مسكين كان عدس كل صعدة ولا الله يقوم جرتين وأن قعد صنيو فضلا عبد الولي قاس والصبرة وداين هعيرن عيرسك داين هلاو قروي قدومي يا شيخ تطلع كرو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قروي سألوا يا مانتي في عنيه قروا والوفي عنيه نبدو برواقوي وحين رجينا قبي روبكا هذه بالوفي عنيه ان اللي واحد اللي هذا وي maxaa lagu dhahaa جلك وين الوي عاقل جلك وين اللي هذا وي caaqilow soo dhawow idaacadda ku soo dhawow shacabka Soomaaliyeed ee walaalaha loogu khildmeeyo loogana shaqeeyo nabadda isukeenka dib u heshiisiinta iyo danta guud ee Soomaaliya walaalow Cabdiwali Gaas aad baa looga dacwoonayay baryahan dadkii kacdoon bay wadeen anigu codsi anigoo miskiinka Allah na codsanayo in la daayo aan la ceyrin bal horta xaaladda guud iiga waran bal seetay xaaladda guud aad bay u wanaagsan tahay waa lagu fiican yahay in calankaas ummadii Puntland dacwo ka tahay ummadii Soomaaliyeed dacwo ka tahay ilaahay idankii ummadda Soomaaliyeed dayax baa u soo baxay 8 February madaxweyne Soomaaliyeed baa loo doortay ma garata waa gartay asaga muxuu dhibaato geystay maxaa lagu nacay ninkan nin professor weeyaan oo aqoon-yahana ما شاء الله يعني إلهي بركيه ولا لو نك محاك لو أركيو أنو إلهي بقول يقرصوني محاك قرصون ولا لو في النص سوالي وكسر كرني وكم النقضي بروفيسور بالو قبي ضيحي ومضى الصومالي يدور الشيء يصير الصومالي ودورتين مدحوينه الصومالي مدن عبد الله محمد فرماجو وحسن سكدر وحو بلابي إن بينها دارود لحظة وفي النص سمايو والله حريرة شبلان وسوي توبيا هذا وكحس قدوميه برلمانك يونيك اللي هذا ويسير كحجينا دوي وتجي فينو بلابي نيك اللي هذا حمدك مدو والله الله وحجر أرض كينيا يحلك بقبقك بلو أسوي توبيا تجي مماراتك هذا وحكي صحيحي تلقي خلطراي ولا يدسي بربرة ما قرأتها أولا لو نكان محو فرماتو محو قون صدي ما حكم كيس يوميش يرتا وقدومي قبلات كوكايا ميو قون صدي ما حماتورا كده حيسي فرماتو مركي يعني حكم ك لقى مارتي وحين هاي سو كيري ما نكان ولا الكيا يعني هلا كانوا تاسن صومالي الدون كقعد صنيا كورنا سوكي مارتي وزير يا برايم مينستر كحجين يا هؤلاء يسوقون داري عدولي جاز ماجو كسو عام بحي سو فرماتشو إلهي كسكو ماين نينكو أبال ملا مياه سوي حوجران كانوا وحن بقولوا بحنين نيجا موين نيجي هذا ويا وحول بانيجي نيجا مصر هي شكا ونكاني آمن ما قرأتها كعلي محل ده نيجا موين الشكل اللي هذا استعمال ما قرأتها oo meeshan Puntland la leeyahay Soomaha meel dad isu yimid oo qabaa'il oo Soomaaliyeed oo deegaankaas daga ay heshiyeen oo ay ayagu wax isku fahmeen ma wixii miyuu ka baxay oo asaga yiri aniga waxaan ba Allah diyaarati ku dhufanaya oo laga masreeyo ninkii dadkii waa kala fogfogeeyay qolo walba meel buu geeyay wadankii ciidamada shisheeyay uu isticmaalay hay'adaha maalgeliyaan nin uu aan kara ma jiro wadankii abaar baa lagu jiraa in walba saytiisa u yaaban hadda shalay doraad waxaan ogaa asagoo maray Itoobiya tagay doon intay dushooda fuuleen asaga iyo niman kale oo madax Itoobiyana ay yiraahdeen waxaanu ka wada hadlaynaa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo hawlo kale oo barcadbadeed ku saabsan maxaa in cali gaas galiyay inuu hawlaha Soomaaliya ka hadlo waxa ay qusaysaa arrintaasi dawladda federaalka iyo madaxweyne Farmaajo taasina waxaan u aragnay mid dadka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo cidda ummadda heshiisay iyo dawladnimada dhisatay wax ku kala fogeynaya ma garat Cabdiwali Gaas madaxweyne Farmaajo hadda shirka Nairobi awal maamul goboleedyada waa loo yeeri jiray looma yeerin shirarkii badnaa oo galay 99%
garabkiisa kama muuqan nimankii la baxay guddoomiyaasha gobollada waxaas wuu diiday cabdiweli gaasna waxa ay soo gaaraysa in markii uu dhoofayay uu yidhi farmaajo ayaan ka idan qaatay arrintaa ma jirtaa wax ka jira ma jiraan ninkaani awal garowe markuu imaan jiray nin wuxuu ahaa shacab ah oo aanan dadka dhibin oo aanan isgoosyada xiran hadda wuxuu keenay maanta meel walba askari intuu ka foorariyey xaajiyada meel walba inuu tiknika intuu dhiga magaaladii oo dhan kala xiro dadkii kala fogeeya ma garan walaalow lacagtan militariga iyo ma hubkaan ma Ethiopia keenta xagee la keenay waxaan jinni oo ciida ka batay waxaan maxay yihiin dad qoryihii iyo bariiskii baas la kaadeen yaa la hubkaan loo aruursanaya horta nin mantiqadan Puntland yiraahdo marka si loo fiiriyo baaxadda Soomaaliya dhulka ay ku taalay santarka ay ku taala meelo badan ba furma kaga furan ma garata furmaha maxagga Ethiopia ay kaga furan tahay oo Soomaali galbeed baa la xoreynaya miya waxa jira dadka Soomaaliyeed waxa jira waxyaabo ay soo ogoleen ma garata ma ayagaan soo ogolayn mise Ethiopia ku dhex kala jirta dad gacmo shisheeyana waa ku jiraan Soomaalida dhexdeedana waxba soo ogola ma garata haye arrintaas maxaa laga dheefay wax soo ogolaansho la'aanta Sootii Cabdullaahi Yuusuf ka shalaayay oo yiri maaha haddana waan lahaa saan Soomaali inay ku dambaynayso ma sameeyeen kacdoonkaas iyo gaalay amxaara inaan u galo raggii SDF oo dhan soo kuwii ka shalaynayay maaha soo tan buugta laga qoray maaha marka ma wixii lagu halaagsamaa dib loogu noqonaya dib loogu noqon maayo laakiin horta meel Soomaali isu keentay meel hal mar in isugu yimaadeen dunida oo dhan 20 sano Soomaaliya burbursaneen dibadda waa la isugu tagay ummadda islaamka oo dhan iyo dawladaha shisheeye oo dhan waa kharash ku bixiyeen sida Soomaali isugu keeni lahaayeen marka taariikhda Puntland raaca meel ay hal mar Soomaali isugu timid oo dal iyo gobol iyo degmo iyo tuulo nin jooga ninkii wax xukumi karaya ninkii wax dheer garad ah meel isugu yimaadeen oo hal mar ku jireen horta Puntland baa jirta ma garata horta erayga Puntland ma dawlad gaar ah ba dawladda Puntland buu Cabdiweli gaas ku celiyaa dawladda Puntland ma dawlad go'day ba oo dawlad ah mise waa gobollada Puntland in la dhaho oo yani shacabka Puntland baa la leeyahay anu waxaan waa ku wareeray niyow horta Puntland dawlad ma aha laakiin waa maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira ma garato federaalka hadda gobollada Puntland xataa ma la dhaho gobollada bariga Puntland maamul goboleedka Puntland xataa ma la dhaho madaxweynaha asaga protocolkaas la raba in laga saxo waana loo sheegay waana fahmi waayay ma garatay ninkaana nin imeeyaba weyn u aaminsan yahay ma garatay walaalo hadda soo kibirka soo laguma kufo kibirka soo laguma kufo Cabdiweli gaas waxa la ii sheegayaa ganacsigiisu ilaa South Africa iyo Mozambique iyo Zambia iyo Europe iyo America iyo Australia iyo khaliijka carabta iyo meel walba iyo kambaniyada gudaha xataa yani meeshan gobolada Puntland leeyahay inuu multi-millionaire noqday oo shirkado kalluumaysiga iyo dhismaha iyo dhoofinta iyo soo dhoofinta iyo dhoofintaba marka dadkii muxuu u reebay Cabdiweli gaas ya awalana hadda joogna 83 markab oo jiriifa badda ku jira ma garata haye 83 markab maxay qabtaan warwa jiriif way kharash baa laga qaata ma garata jiriif maxaa la dhahaa ma kuwan kalluumaystaa waa kuwa kalluunka xaalufinaya oo meesha godadkii iyo baddu ku jiray wuxuu cuni lahaa oo dhanna ka burburanaya wax walbana jeexaya ma garata marka lacagtaas yaa qaata ciidamadiina mushaar ma helaan baa la leeyahay yaa qaata lacagtaas xagee jinniya ku dhacdaa baarlamaanka la leeyahay odayaasha dhaqanka iyo dadkan isu tago qabiilada heshiiyey lacagahaas ma ka warhayaan meeshay gasho dhalinyaradii shaqo ma haysataan oo waa taariibahayaan nabadgelyo ma jirto meel walba waa holcaysa kadib boosas shutdown baa laga dhigay gaalkacyo shutdown baa laga dhigay xagee loo socdaayo jinni dadkii yani jahwareer baa ku dhacay maxaa jira ma sixir baa dadkii haystay maxaa jira lama hadli karo miyaa oo ayadoon xabad la qaadan oo aan maaragtay wax la qarxin tartiib inta loo hadlo walaalayaal usaar nama qabato lasma dhihi kara miyaa maxay taanaa dadka ka weyn xoolaha ka soo baxa kalluunkan xagee galaan yaa la heshiiyey
يا بدي إبر كلو ما يستطيع برعد بدات باليري ما حنو محقبة يا صومالية يا مسلمة صاروا محيطة حولها waxaan anagu u dareennay oo markii cilmi baaris badan la sameeyay diyaaradda Itoobiya maalin walba u socota baan oo ka shaqeynaa ma garad maalin walba ay dhooftaa maalin walba waa dhooftaa madaxweynuhu bil walba laba jeer uu tagaa ma garad adeerow gacali adaaba kibirka iyo isla weynanka idinkaaba ku beerayaba ninka kan madaxweynaad leedahay gudoomiyaha gobolada bari ma tiraahdi ama gobolada tan ma tiraahdi maxaad adigu u dambaajinaysaa ninka kan federal weeye Soomaaliya federal marka la yiraahdo goboladaan wuxuu yahay marna madaxweyne marna federal han marka la yiraahdo gudoomiyaha caawal kale uu yahay ma garad adeerow beesare adeerkaya federal macnihiisa ma taqaana horta ayaga keenay Soomaali kaga galiyay war waxa la yiri Soomaali central government lagu maamulo war 18 gobol 9 daarood baa leh war idinka kor iyo kor maartay xukunka qabanaya hadda ma jarteen baana magacaan daarad ku shaqeystay saad ogtahay ma jarteen baa laga waayay waxa maartay laga waayay waxaan ahayn federaalkii 4.5 buu dhalay 4.5 buu dhalay awal dirya daarood baa wax lagu qaybsan jiray waxa la yiri shan baa loo qaybiyay nimankii irir hadda daarood xageeb wax ka qaadi marka federaal wali adeerkay ma ku sii waasheen federaal khasaare weeye wuxuu keenayaa burtille ilaa xuduuda burtille ila gooyo oo galmudug waxa la yiraahdo la raacsiyo sheekadan raqiiska ama jarteen inuu ka baxo Soomaali ay central government dhisato xoog leh oo nin walba goolkaaga iyo degmadaadii adigu xukun la dhaho ma ogol yahay يا محات ما قال يا كويري كان النجم وين ابو استعمال ما قراتها يا دولدان هذا فايده ما جرتن وما جرت فدرال waxaan leeyahay ya daaradba waxaan anagu ka codsanaynaa anagu ummadda Soomaaliyeed inta leefka ah iyo dawladda federaalka ah in kan wax laga qabto dawladda federaalka iyo ummadda Soomaaliyeed masiirka ummadda Soomaaliyeed Puntland xasiloon bay ku jirtaa ma garat hay xasiloonidii maxaa ya diidan midna aan ku weydiiye Soomaali waa walaalo gaalkacyo markii 8 February la doortay Muhammad bin Abdullah bin Farmaajo labadii suusaxley iyo baraxley gaalkacyo waa isdhax galeen ayagoo ooyahaya isdhunkadeen wiiliya abtigi wiiliya awowgi wiiliya habaryarti adeerow gacal iyo dadkan isbaarada la kala dhex dhigto Itoobiya kala dhex dhigto hubkan la soo guraayo la qixinayo ganacsigiina lagu ciyaaray maxaa looga dalnaya maxaa laga dheefaya si fiican dadkan qofkii hadla ama qofkii wax garad oo la arkay in wax dareemayo waxyaabaha jira fahmaya madaxa laga jibinaya ma garad oo yaa ka jabinaya masirdoonka Itoobiya iyo ragga ciidamada ugu jira ilaa saraakiishii hore Itoobiya inta ayrisay kuwa ay soo tababartay keentay sanadkii hore anagu wax walba hadii la baaray oo la ogaaday waa la fahmi la yahay 300 400 oo barnaamijyada ah oo wax fakarata ah oo wax aqoon-yahana baqaayo lagu laayay ilaa haddana hal qof looma hayo ma garad marka ma ka qarsoon tahay in Itoobiya ay ka dambayso iyo sirdoonkeedu anagu hadda ma saari karno sababtoo anagu dad shacab aan nahay ma garata waxaas waxa loo baahan yahay inay cadeyso dawladda ma garata hadda dawladnimo maxay tahay dawladnimo sootii amniga iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo biigelinta iyo korontada iyo isdhaxgalka iyo walaalnimada ummadda ka shaqayn jirtay dawladnimadu maxay tahay la sheeganayo ma in maartay dalxiis aan laga bixin ba xoolaha muslimka iyo shacabkana la xaraashto dalkii iyo dadkii iyo diintiina la gado ummadina la laayo dariskiina la isku diro dhaqaalihiina lagu cayaaro ما ساس هذه لا يكيد معي ساس مياه الدولة نمدو سمع ما هو ما المبوناجي يا قنتي يا بروفيسور نمدي للشيء هي ما هذا ولا له أنو كفاية سنة إن السوشيال ميديا هن يخط كانوا مدة صوماليين إنت لايف كي إنت أونلاين كأه وحن ويسين الدولة دين هدي شوفكو مركو دو ومدة برواقو دو للدو إن الحساب السوق يعني ما قرأتها هاي أو أنت كوري سنة
dadka Soomaaliyeedna waxaan ku rajeynayaa khayr iyo barwaaqo adiga Sheekh Dabcasarna oo salaamaynaa nin odaya marna wadoona marna sheekha wataa ma garan waad maasan tahay caawimadii iyo lacagtii loo soo diray ma gaarsiiyey dadka abaaraha mise akoontiyadu ku shubtay wax horta dawladdu ay tartay boqolkiiba 10 baa la oran karaa ma garantaa haye marka dadka dhaqaalahan la gurayo ee canshuurahan xaggee aadaan mushaarkii ciidamadii la yihiin maxaa jira yaa ma garatay dadkan qurba joog barnaamij dhaxan ka yimid ها يا waxay shaati ka dhigtaan iyo waxay huwadaan iyo waxay sud ka dhigtaan bay wixii ka dhigtaan ma garata dhaxantay iska dadayaan ma garata rag badan oo Cabdiwaligaas gacan yarayaal oo jooga Minneapolis iyo Columbus Mareykan labada gobol tujaar milyaneer weey waana raggii markii hore halkan ka tago campaignkiisa ka qayb qaatay maxaad kula talinaysaa raggaas milyaneerada yaani oo caruurahoodii dhex jooga dalkiina lagu baabaay oo ma jirteen iyo gaajo loogu baqtiyay maxaad leedahay waxa la u sheegayaa oo faraya in garan lagu reebi doono suudadka laga bixin doono oo dhaxanta ay ku noqon doonaan dhaxan bay noqon doonaan kullu shay yar jooga ila aslihi ma garat haye marka taasaan hawada u mareynaya insha Allah isla xisaabtan iyo waxa imaan doona in la soo daweeyo ma garat marka haddaan ka codsado ninkan dhibkiisu ma yara gacantiisuna isagu isku toogtay ummadiina isku kiciyay kalsoonidiisina dhulka uu dhigay haddaan idinka codsado inaad jaanis siisaan walaalayaalow banu ma jirteen ma iga yeelaysaan waa ka yeelana sheekh waa ka yeelana ma garata marka fawdadan iyo kacdoonkan iyo mooshinkan jinni oo inaad mal u kaadisaan ma iga yeelaysaan walaalayaalow walaal intii horta duqaad ahayd waa la duqaatay maantana de ninkan mar walba diyaarad buu dadka ka raacaya dhiftu waxay u haraysaa dadka dalka jooga ma garata haye marba marka inuu diyaarad raacayo oo tigid go'an yahay oo nin adigu wadankiiba ka socdaba wuxuu wadanka ku joogaba waxa weeye mar walba oo tigidkiisu dhici raba ama waqtigiisu dhici raba baasaboorkiisu waa tagaya oo soo cusboonaysiisanaya dawladda la soo shiray booranaya waqti sheerkiisii wuxuu soo dhuganaya iyo baasaboorkiisii soo cusboonaysiisanaya ma garata يا واي خير بنكون رجيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته